السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا قاعدنا إسماعيل حرسي سودو هذا قعمر فرن قلب فرن ضدك وحريرها تيجارسن أورك تشيوال ودن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحريرها ضدك مسلم ودن ومركز تبعدون كدافع كتشوغان. وحريرها رمضان كريم. مدة لقى مقنعين لكن إن شاء الله ما توصل مقنعي هو شيء غير مشغول هاي من غير ماتي مركز بدن بنسويتي برنامج كحلو جوشي ما لجوشي لكن قول جهرين كسوقوري قول عصب ما تسوقوري مركز ويلكم باللين هاي طبعا عادي أبو ما صنع هاي بس كنا جالس وحريري وحريرها قيمة فيسبوك بيج كتشيوا تي في هي قيمة تويتر كا تشيوا تي في هي قيمة يوتيوب كا تشيوا تي في إن شاء الله ما أنت ورا بايرها وركو وهريا إن شاء الله لبضي أسبوع قدام بيصير لقى هدي وحي هاي ضدك شرع السنة كهوايستا جنيفا طبعا لوجي هاي لبضي يكون يلحي طور لها مركي هاي إنها لجوجي إن يفهم لجود السوق حيان والله بس أنا أقول لجو حجي إن أي حوالنا بريجاس لا هالمية باسوق على جرمكا مركا ضغط يبرشر بعضك سامي marka intii aad guriga loo hagaajinayay amba guriga la dhisayay oo loo geeyo waa dawladdu ka fakaro qofka inta uu iman nolosha ku noolaan lahaa marka insha Allah imka insha Allah saan noqday bisha 8 kowdeeda ayaa loo furayaa waxa la yiraahdaa dadka sharciga sanadka haysta inay familiga soo ka haystaan laakiin طبعا جرمكو حرر عصب صو صاري حركة وهريا إنه أي راهين سنتكي وحلي لها استغفر الله بشي وحلي سوي قلنا يا وحلي لها كنقف طبعا عرنتاس مركي غيري حزبي بدن أو ذاتك قحوتي تيجارسن أيا كم عارضي سببته waxay la doonayaa dadka qaxootiga hadaba sharci qaatay oo loo sanado ala laha sub maanta inta cid kasta loo furo inta familigiisa soo kaxsan karo laakiin wasiirka cusub waxa la yiraahdaa arrimaha gudaha ayaa wuxuu yiri sanad waxa la yiraahdaa bishii waxa la yiraahdaa waxa loo ogolyahay kun qof taas oo dheertahay in hay'ad gaar ah loo furay dadkaas waxa la yiraahdaa la soo kaxaynayo oo waxa la yiraahdaa waliba طبعا cid kasta la soo kaxayn maayo wuxuu yiri marka ugu horeysa carruurta yaryar amba dadka isku dhiibay under age-ka ayaa marka ugu horeysa waxa la yiraahdaa la keenaya طبعا dadka jarmalka waxay yaqaanaan bambino dadka bambinaha ah isku dhiibay ayaa insha Allah marka ugu horeysa dadka horta waa ina aabahoodii hooyadood loo keenaa waxa ku xigta qof مثلا isagoo xanuunsanayo waxa la yiraahdaa oo jarmalka jooga oo مثلا xanuun xun laga helay amba xanuun qaba qofkaas oo kale طبعا familigiisa ma ka maarmo qofkaas oo kale inta familigiisa loo keeno qodobka saddexaad waxa weeyaan qofka jarmalka jooga hadii familigiisu meel khatar ah oo dagaal leh ay joogaan oo looga baqayo in la dilo kuwaasna in si degdeg ah loo soo kaxeeyo inta kale ana saddexda aan ahayna waxa la yiraahdaa waqtigooda sugayaan bishii waa kun qof marka hadda isaga nasiibkiisa inta ku qaadanayso inta familigiisa soo kaxeeyo waa qodobka koobaad insha Allah xaggaas warkaas ayaa kaga baxay taana waxaan ku sii darayaa oo kaliya qofku markuu imka insha Allah waa haday soo dhawaatinta arinta la furo waxaan anu la taliyaa neef Soomaali inta badan oo la taliyaa inay soo kaxaystaan lawyer amba ay waxa la yiraahdaa ay qabsadaan amba markay tagayaan meelaha soo kale inta qof mutarjim ah oo afdashku si fiican u yaqaan sidoo ugu tarjumo waxyaabaha laga rabo oo saano caqabado iyo caraaqilani wiiman qof afjarmaka si fiican u yaqaan ku haysto warka kale waxaan malayaa war horta yani sidaa u fiicanna maaha laakiin waxa weeyaan gobolka la yiraahdo Bremen
dhibaato ayaa ka jirta baa la yidhi. waxaa la ogaaday dad badan ilaa 18,000 oo qof oo waxaa la yidhaahaa ay sharciga magaaladaasi ay siisay, weliba ay ku siisay dad aan istixaqin inay qaxootinimo loo qaablo oo dadka la iska siin jiray. xataa waxaa la yidhi siday wararkuna soo gaareen dad baa markii fayrarkoodii la furay fariheeda waay. marka 18,000 oo qof waxay ahaayeen 2000 ilaa maanta 2018kaas wixii oo dhan dib baa loo furayaa. naagtii haysatay maxaa la yidhaahaa gobolka qaybta banka haysatay amba dadka interviewka haysatay waxaa la yidhaahaa iyadii lafteeda iminka waa la haystaa. waxaa lagu haystaa 2 bilood ugu dambeysay amba bishii ugu dambeysay ilaa iyo waxaa la yidhaha 1,080 qof iska siisay sharci aan xataa interview qaar laga qaadin. marka taas lafteedu dhibaato badan bay keentay. marka waxaan u sheegayaa ummadda Soomaaliya ee magaalada ku nool inay dib waxaa la yidhaahaa waxay interviewka ku mareen amba waxyaabihii berigii hore waa inay dib usoo akhristaan. waa loo yeeri karaa waqti kasta. marka waxaa la yidhaahaa insha allah waxaan jecelnahay insha allah ummaddeena Soomaali arrintaas oo kale intay ka badbaado aanay wax dhibaato insha allah ku arkin. waxaanan la talinayaa dhalinyarta Jarmalka ku joogta maalinta interviewga martid meel kastaba Jarmalka ka joogtid waraqaa lagu siinayaa waxa interview ku martay. dad baa waxay sameeyaan markay sharciga qaataan waraqahaas oo dhan xashiisha ku ridaan oo iska tuuraan. taladan siinaya waa maxay? waxa weeyaan waraqahaasi waa waraaqihii sharciga lagu siiyey oo dee lagu aqoonsaday qaxootinimo Jarmalka gudaheeda. waxa weeyaan waraaqahaas oo kale inaad meel fiican aad dhigatid. wax kasta way dhici karaan adduunkani hal maalin iyo habeen buu isku bedeli karaa. waxa weeyaan waraaqahaas lagu siinayo waxaa la yidhaahaa waxa interviewga ku martay waxaa la yidhaahaa waa inaad meel fiican aad dhigataa. insha allah 20 sano ka bacdi waa inaad haysataa waraaqahaasi meel safety ay ku taala. maalin kamid ah wax dhici karta inta hal daqiiqo lagu yidhaaho maalinta soo gashay waxaa ku soo gashay dib lagu soo celin interviewga. wax kasta oo dhici kara adduunkan. marka waraaqahaas waxaan la tali lahaa haysta waxaa la yidhaahaa alumnina meel dhigta. insha allah waxaana dadka xaggan u sheegaya insha allah barnaamijyo badan baa soo socda. barnaamijka nolosha Jarmalka dabcan iyo barnaamijyo kale oo insha allah aan tiragelinayno. waxaan awood u leenahay amba waxyaabaha website-adan ka soo qaadno amba meelaha aan ku aragno af carabiga. dabcan anigu af carabiga si fiican baan u aqaanaa. marka intaan af Soomaali ahaan ugu soo turjumno si aad ula socotiin waxaa la yidhaahaa Jarmal gudihiisa waxyaabaha ka socda iyo waxyaabaha ka dhacaya. insha allah barnaamijkeena wuxuu ahaanayaa isbuuc kasta. marka barnaamijyo kalena way soo socotaa oo luqadda ah insha allah waan tiragaraynayaa dee inaan isla barano inkuna ay iga bartiin ana inaga barto su-aal soo weydiisin kelmadaas amba jumladaas wax lagu oran karaa ana lafteedu aan naga faa'iido aan kala faa'iidno. marka insha allah waxaan jeclahay page-kayga insha allah JWL TV Facebook inaan kala socotiin iyo waxaa yiraahdaa page-kayga aan ku leenahay waxaa yiraahdaa اللهم صل على النبي waxaa yiraahdaa Twitter-ka iyo page-ka aan ku leenahay waxaa yiraahdaa YouTube-ka script noo share gareeya. aad iyo aad u mahadsantihiin. waa inoo iyo isbuuc dambe insha allah iyo barnaamijyo badan oo insha allah ummadda Soomaaliyeed ku talagalno si waxaan ku anfici karno iyo waxaan kaga yara fiicannahay inaan u soo gudbino. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.